السلام عليكم دمان umada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay nabad qab ku waara meel kasta joogtaan gaar ahaan asxaabta ku xiran YouTube-kayga Badbaado channel inta aan ugu xirnayna soo xirna walaalayaal ku dhax waxaan caaw u soo fariistay inaan idin ogeysiiyo barnaamij yar oo jeclaystay inaan YouTube-kayga ku soo biiriyo oo la yiraahdo kawar bixi waayihii ku soo maray kawar bixi waayihii ku soo maray heeso kuma jiraan waxyaabo kale kuma jiraan qof waliba wuxuu uga warrami doonaa waayihii soo maray weliba kuwoodii ugu dhibka badnaa macnaha marka aan leeyahay ugu dhibka badnaa ayuu ka warramayaa qof waliba kulli waxaa soo maray waqti xanuun ah ama ha dheeraada ama ha gaabnaada intuu soo marana waxaan leeyahay ilaahay idin soo marsiyo intuu soo marana waxaan jeclaystay barnaamijkan inay soo tabiyaan si ay walaalahooda kale ee ama daawada ama YouTube-kan ku xiran ama aan ku xirnay ay ugu duceeyaan intii dhib ku jirtana inuu ilaahay ka bixiyo intii soo martana xataa gocashadu waa xanuun inuu ilaahay gocashada loo siiyo oo haddaad si walba xataa cafiso wixii dhib ku soo gaarsiiya ama adoyar ama adoweyn laakiin aad gocashada xataa waa xanuun marka waxaan jeclaystay inaad xataa gocashadaas isaga duceysiin oo macnaha qofka walaalka ah dad cafisay aad gocashada iska ilooda haddaadan cafin aad iska cafisid haddii ay jirto waxyaabo kale oo tabanaysid oo jiraan in waayahaaga ay quseeyaan iyo waqtiga adiga aad taagantahay oo afkaaga oo ku gabay oodan hadli karin oo jeceshahay cid kale la gaarsiiyo akhbaartaadana welcome saddex waxyaabood saddex wajibu u furan yahay barnaamijkan ilaahay ilaah wuxuu u furan yahay kow in magacaaga ama muuqaaga adiga haddaad nala joogto iyo dad video noo soo diri kartaba adigu ka xogtaada ka warrami karto labo inaad magacaaga sheegto wixii aad soo qorato lagu tabiyo saddex inaad magacaaga iyo muuqaaga aad qariso laakiin xogtaada lagu gudbiyo saddexdaas wajibu u furnaan doonaa intii xiiseynaysa ama danaynaysa commentiga hoos igu soo qoro barnaamijka xiga lambarka idin soo dhigi doonaa WhatsApp-ka hadii ilaahay yiraahdo saas iyo nabadgelyo.